kulan wanaagsan saaxiibada ku xiran Dheeman Show waxaan ka hadli doonaa filimkii ugu horeeyay ee Soomaaliya ay leedahay kaasi oo noqday filimada 2021 lagu jecel yahay kaasi oo wadamo badan lagu soo bandhigayo. Filimkan ayaa waxa uu magac baxay Xaaska Xabaalqodaha. Talaadada la soo dhaafay ayaa filimkan waxa lagu daray filimada ugu saameynta badan 2021. Filimkan ayaa waxa sameeyay Qadar Axmed Cali Druus. filimkan oo dadka wada jilaya ay yihiin Soomaali ayaa waxa la soo bandhigay sanadkan iyadoona dalalka caalamka lagu soo bandhigayo. Filimkan oo soo saaray Qadar Cali Druus Axmed waxa uu sheegay inuu ku saabsan yahay qiso dhab ah oo dhacday 10 sano ka hor kaasi oo ku dhacday qoyskiisa. qaar kamid ah filimkani jilayaan ajaanib. Filimkan waxaa London lagu soo bandhigi doonaa bishan October xilliga uu qabsoomayo filimada London. sidoo kalena waxaa lagu soo bandhigi doonaa filimka Chicago. waxaa kadib la geey doonaa dalka Burkina Faso waxaana lagu daawan doonaa xilliga bandhiga filimada Afrika. bisha November ee soo socota ayaa loo asteeyay in la gaarsiin doono dalalka Finland iyo Norway. dalka Faransiiskana waxaa la gaarsiin doonaa bilowga sanadka 2021. waxaa markii ugu horeysay filimkan lagu soo bandhigay dalka Canada waxaana jirayay dhalinyaro Soomaali ah. goobtii ugu horeysay ee filimkan lagu soo bandhigay ayaa waxaa lagu guddoonsiiyay abaalmarinta Oscars. filimkan oo la magac baxay Xaaska Xabaalqodaha ayaa waxaa lagu jilayaa luqadda afka Soomaaliga taasi oo ah guul u soo hoyatay dadka Soomaaliyeed in afkooda hooyo halkaasi oo gaaro. wiilka sameeyay filimkan ayaa sheegay inay tahay qiso dhab ah oo ka jirta qoysaska Soomaaliyeed ee danyarta ah, marxaladaha kala duwan ee noloshooda ay soo mareen iyo jacaylka ka dhex jira qoysaska saboolka ah. wuxuu sheegayaa in qoyska Soomaaliyeed ee saboolka ah ay la soo darsaan dhibaato dhanka nolosha ah inkastoo caqabadahaasi dad yar ay ka gudbaan taasi oo ay saameynteeda leedahay dhaqaaliyada haysata. sidoo kale xabaalqoduhu wuxuu badbaadinayaa xaaskiisa taasi oo caafimaad darro qabta isagoo u raadinaya in markaasi ay caafimaad hesho. waa qiso hooyo, aabba iyo caruur yaryar ay markaasi jilayaan. qisadan ay tusaaleynaysaa jacaylka dhex yaala qoysaska saboolka ah, farxadda iyo cid kasta oo yeelan karta laakiin lagu kala duwan yahay xaaladaha la soo maro. waxaa xusid mudan in filimkani marka la dooranayay aan lagu dooran waa Soomaali balse laga soo dhaxushay 500 oo filim oo ku dhex jiray taasi oo ahayd muuqaalka filimka sida uu sameysnaa, qisada uu ka hadlayay iyo sida ay u jilayeen jilayaasha Soomaaliyeed ee markaasi metelay oo guul soo hoyatay Soomaali iyo aktarada Soomaaliyeed in fikradahooda halkaasi ay gaaraan. oo ku maasantiin daawashadiina sida ay nabadgelyo.